Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo channelkeeni Dhoolacase oo MW oo maanta aan idinku soo bandhigi doono habka loo xareysanayo iyo scholarshipkan Turkey Bulusraariga, waxyaabaha uu ka kafaalad qaadayo, shuruudaha uu kugu xidhayo si aad u xareysatid iyo howlahaas ayaynu waxyar ka taataaban doonaa hadduu alla idmo. Scholarshipkan waa scholarship uu bixiyo dalka Turkigu, sidoo kalena ay Soomaalida majoritygooda amba badankoodu ay xareystaan, sidoo kalena ay u furan tahay qeybta undergraduate-ka iyo bachelor iyo master iyo PhD. Haddaba waxaynu qeybtan kaga sheekeyn doonaa undergraduate-ka oo bachelor degree-ga ah. Waxaynu ku horeyn doonaa slides yar baynu kasoo sameynay shuruudaha iyo waxyaabaha uu ka kafaalad qaadayo, sidoo kale talooyin yaryar. Shuruudaha uu undergraduate-ka uu kugu xidhayo waxaa ka mid ah ardayga xareysanaya buu ku yidhi waa in uu sitaa shahaado 70% darajadiisu tahay amba wixii ka sarreeya. Sidoo kale haddaynu xuruf u dhignana A amba B. Sidoo kale wuxuu ku yidhi waa inay da-diisu 21 sano jir tahay amba wixii ka hooseeya oo qofka xareysanaya bachelor degree-ga. Sidoo kale scholarship waxa uu ka kafaalad qaadayaa buu ku yidhi kharashka nolosha iyo halkaad seexanayso. Waa kharashka nolosha, waa lacagta aad ku noolaanayso, sidoo kale meesha aad ku noolaanayso, sidoo kale kharashka waxbarashada kugu baxaya, dalxiiskaaga, caafimaadkaaga iyo tikitka aad kusoo noqonayso dalkaaga marka aad soo dhammaystirtid jaamacadaada. Hadday dalxiis noqoto, hadday caafimaadkaaga noqoto, intaba iyaga ka kafaalad qaadaya. Bishii lacag dhan waxaad helaysaa 700 TL oo u dhiganta $119 ayaa lagu siinayaa buu ku yidhi. Haddaba waxyaabaha documentska lagaa doonayo si aad u xareysato scholarshipkan waa inaad la timaado documentskan. Sawirka kurkii waa ka baasaboorka lagu dhajiyo, size-kiisa weeye. Sidoo kale passport amba ID card amba shahaado dhalasho waad ku xareysan kartaa. Sidoo kale shahaadada dugsiga sare hadday Somaliland noqoto iyo hadday noqoto Soomaaliyaba. Sidoo kale transcript letter, waraaqadan waa waraaqadii darajooyinka aad kasoo qaadanaysid dugsigaagii sare ee secondary-ga, waa inay ku xusnaadaan darajadii form 1, 2 iyo 3-giiba. Sidoo kale waa inaad recommendation letter soo qaadataa. Recommendation letterku waa waraaqad aad kasoo qoranayso macalinka form-starkaaga secondary-ga. Marka wuxuun bay ku noqonaysaa waraaqadani markhaati oo waxay ka caawinaysaa helitaanka waxbarashada. Sidoo kale halkan waxaan ka tegay waxa waa in aad soo diyaarsataa shahaadooyin yaryar oo sida training iyo aad ka qayb qaadatay, sida course aad dhigatay, oo kuwaas waxay aad kaaga saacidayaan sidoo kale xoojinayaan application-kaaga si aad ku guuleysiga application-kaaga. Tusaale ahaan haddaad xiisad qaadatay English oo course amba computer kuwaas waxay ka saacidayaan helitaanka application-ka. Marka waa inaad kuwaasna iska soo diyaarsataa. Intii ugu muhiimkahayd waa kuwa. Sidoo kale talo muhiim ah ayaan halkan idinku soo bandhigayaa. Waxa weeyaan waa in aad uga taxadirtaan xareyntiisa, sidoo kale aad ula socotaan digniinaha ku siinayo. Waxa weeyaan habka marka aad xareynayso waa inaad videoga aad si fiican horta marka hore uga bogataa, marka dambe aad si fiican isugu daydaa inaanad wax khaladi aanay kugu iman. Kolley bini-aadan baad way kugu imanayaan, laakiinse application-kani wuxuu application-nada kale dheer yahay in uu kuu soo saaray amba digniin kuu sheegayo inaad meel ka tagtay oo casaan uu kuu soo dhigayo. Marka waa inaad aad uga warhaysaa inta aanad gudbin. Haddaba arday, waxaan idinkula talinayaa inta aydan bilaabin habka loo xareynayo scholarship-ka amba xareyntiisa, waxaan aad idinkula talinayaa in aydu marka hore programka amba faculty-ga aad xareysanaysaan aydu halkan kasii searching garaysaan si ayd u ogaataan jaamacadaha bixinaya faculty-gaas, sidoo kale waxyaabaha ay ku xidhayaan iyo howlahaas si aad u ogaatid iyo ta ku wanaagsan ayaad xareysan karto. Iminka tusaale waxaan xareysanayaa accounting baan xareysanayaa, bachelor degree baan xareysanayaa, kadibna search ayaan
ku dhufanayaa kadibna waxa uu inoo soo saarayaa programmeskii wuxuu ku one program is found in one page wuxuu ku yiri hal program ayaa hal jaamacad baaba bixinaysaba programkan aynu dooranay haddii aynu ku kala isnidhaahno doorta tusaale businesska haddii isnidhaahno doorta bachelorka qaybta degree haddaynu doonayno bachelor degree baad ka dooranaysaa haddii kale hadda undergraduate baynu xareynaynaa maadaama aynu undergraduate nahay hadda oo ka 490 program ayaa halkan ay jaamacadahani bixinayaan sidoo kale halkan ku xusan programka koowaad English buu ku baxaya jaamacadaasaa bixinaysa special conditions waxyaabaha ay kugu xidhaysa waa kuwa marka waxaan aad kula talinaya inaydu halkan marka hore soo search gareysaan faculty-giina si aad u ogaato jaamacad walba faculty-ga ay bixinayso waxyaabaha ay ku xidhayso haddaba waxa aynu bilaabaynaa sidoo kale aynu isku dayeynaa in aanu video idinku tusno habka loo xareysanayo qeybta koowaad ee waxbarashada jaamacadeed amba bachelor degree-ga sidoo kalena la yidhaha undergraduate-ka habka loo xareysanayo ee turka bursary waxa aynu sameyneynaa habka ugu fudud ee aad ku fahmi kartaan ayaynu isku dayi doonaa inaanu idinku tusno waxa aanu tegaynaa google si aan u xareysano mid cusub sidoo kalena waxaanu kasii tegaynaa turkey bursary ayaynu ku qoraynaa googlaha kadib ciwaankaas ayaa inoo soo saaray ciwaankaas waxa weeyaan inuu sax yahay in kale waxaad ku ogaanaysaa ciwaankiisa saxdu waxa weeyaan turkeybursary.gov.tr sila ciwaankan ayaad ku sii dhufanaysaa waxa uu inoo soo saarayaa homepage-kan amba wajahadan waxa aynu kasii tegaynaa si aynu hadda u xareysano qeybteena koowaad videogeena koowaad aan ku sharaxayno bachelor degree habka loo xareysto waxa aynu tegaynaa bottonkani waxa weeye waa halka laga bilaabayo in application-kaaga aad xareysatid waa barta aad ka galaysid account cusub inaad samaysatid amba account-kaagii hore aad ka galaysid kadibna apply login baynu ku dhufanaynaa halkan ayaa ina keenay waxa aynu tegaynaa haatan user hore haddii aad lahayd emailkaaga email hore ood ku samaystay iyo password halkan ayaad ku qoraysaa kadibna login ayaad ku dhufanaysaa se haddii aanad lahayna register ayaad tegaysaa halkan kale haddii aad passwordkaaga ilowday forget password baad odhanaysaa haddii sidoo kale aad ilowday username-kaagii oo la mid ah emailkii I forgot username my username baad ku dhufanaysaa hadda mid cusub ayaynu isku dayi doonaa inaan samaysano register ayaynu tegaynaa kadib waxa uu inoo soo saarayaa markaynu register nidhi halkan homepage-ka amba wajahadan ayuu inoo soo saarayaa kadibna waxa aynu kasii tegaynaa magaca koowaad ayaynu halkan ku qoraynaa magacaaga koowaad waxaan hadda tusaale uga dhigaynaa oon ku buuxbuuxinaa xafiiska magaciisa labaad amba magaciisa aabihii waa ka tusaale ahaan oo kale genderkiisu ma laba ama dhadigba labaynu iska doorana waqtiga uu dhashay qofka undergraduate ka xareysanaya waa in uu 21 yahay iyo wixii ka hooseeya marka 21 meelahaas wuxuu noqonayaa 98 meelaha marka 98 ayaan halkan ka dhigaynaa undergraduate wixii 21 iyo wixii ka hooseeya sidii hore inuu soo xusnay ayuu baa xareysan karaa June 9keedii xilligaas ayuu dhashay citizenship waxa weeyaan waa dhalashada uu haysto Soomaaliya emailkiisii emailkeena ayaynu gelinaynaa halkan aynu ku samaysanayno
isla isaga ayaynu soo koobiyeysanayna halkan ayaynu dib ugu qoraynaa inkastoo inaga diiday inaynu soo koobiyeysano waxay dib ayaynu gacanteena ugu qoraynaa koobigii hadda waa uu diiday markaa dib ayaynu ugu qoraynaa password baad u samaysanaysaa passwordkana waa passwordka aad hadhow kusoo gelisid accountkaaga emailkana waa emailka aad hadhow kusoo gelisid accountkaaga markaa password aanad ilaabin ayaad ka dhiganaysaa sidoo kale mid strong ah oo adag eeg hadda markaan halkan ku qorayay wuxuu kusoo saaray mar calaamadaas mar calaamada marna calaamada ugu dambeysa casaan buu soo saaray waa strong ayuu uga jeedaa waa password aada u adag imika eeg markaanu passwordka gelinaynay kaasi waxa weeyaan waa kii ugu hooseeyay passwordkaagu waa slow buu ku odhanaya waa mid iska daciifa kana waa mid dhexdhexaad ah kana waa mid wanaagsan guri buu ku saaraya kana waa strong marka strong weli maan gaadhin waxaan doortay waxaan gaadhsiiyey ilaa mid good ah oo iska wanaagsan marka passwordkii baan haddana again kusii qoraya halkan secret question waxa weeyaan halkan su-aal ku qarsoon ayaad halkan gelinaysaa tusaale ahaan oo kale waxaynu halkan gelinaynaa tusaale ahaan my old da-dayda su-aashan halkan ku taala jawaabteedii marka waxaynu gelinaynaa 21 halkan verification codekana halkan waxaad gelinaysaa qoraalka halkan uu mar walba kusoo dhigo adigoo iska hubinaya inaanad ku khaldamin marba capital letter marba small ah refresh baynu odhanaynaa haddii aad arki weydo qoraalkan halkaasaad ku dhufanaysaa si uu mid cusub kugu dooro waad iska hubinaysaa waa 9WBY8S ayaa proofaad taabanaysaa markaad dhammaystirtid safe ayaad odhanaysaa halkaasuu inoo soo saaray passwordka inaynu dib u gelino labada password ayaa is yeelan waayey kadibna safe ayaynu odhanaynaa waa kaa wuxuu ku yidhi magacaagii koobaad waa somesco middle namekii waa international oo magaca aabahaya surnamekii sidoo kale magaca Uganda scholarships nationalitygaaga waa Soomaaliya wuxuu ku yidhi please make sure that your name and surname are corrected to be used in informal proceeding nationality cannot be changed in the next steps wuxuu ku yidhi dhalashada waa inaad halkan iska hubisaa sidoo kalena aad qirsan tahay inay nameka magaca koobaad ka labaad iyo saddexaad bay saxsan yihiin sidoo kale halkan marka aad halkan tigta saartay aad halkan dhaaftid wixii ka dambeeya kama bedeli kartid nationalitygaaga amba dhalashadaada ma bedeli kartid marka waa inaad ka hore halkan kusoo saxdaa kadibna tigtaan saaraynaa safe ayaynu odhanaynaa haddii aynu xagga hore wax kasoo qaladnay edit bayn taabanaa homepagekii ayaynu tegina marka intaynaan tegin wuxuu ku dear Somesco international scholarships registration has been successfully thank you for choosing Turkey and an activation email has been sent to your email inta aynaan gelinba wuxuu ku yidhi activation email ayaan kugu soo dirnay gmailkaagii amba emailkii aad halkan gelisay waxa weyn waa code ayuu kugu soo diray emailkaaga oo dhacaya 8 wuxuu ku yidhi activation email will expire if not approved within 48 hours wuxuu ku yidhi 48 saacadood ayuu ku dhacayaa codekaasi haddii aanad arag oo aanad click siin kadibna emailkeena ayaan tegaynaa oo aynu sii galnay haatanba activation codeka waa kan halkaa waxaan tegaynaa halkaa clickta ay ku taalo ayaan tegaynaa click baynu ku dhufanaynaa kadibna botanka yar buluga ana safe ay ku qorantay baynu ku soo dhufanaynaa hadda halka waxaynu ku galaynaa usernamekeenii oo gmailkeenii ah
iyo passwordkeena aynu soo samaysanay accountkeena kadibna login ayaynu odhanaynaa. halkan uu inoo soo saaray waa homepagekeeni accountkeena gudihiisii. haatan accountkeeni baynu ku dhex jirnaa. haddaba waxa aynu gudbinaynaa intan bottomyadan ayaynu buxbuuxinaynaa. wuxuu kuri you cannot proceed to the application as you have not filled in the mandatory fields. Please provide the information marked with red exclamation mark on the left. wuxuu ku yidhi calaamadahan cascas meelaha ay dul taagan tahay waa inaanad ka tegin oo aanad apply garayn iyagoo calaamada cas ay ku taalo meesha. yacni wuxuu uga jeedaa waa inaad buxbuuxisaa sidoo kalena calaamadaas isku bedeshaa laba tig oo buluug ah. waxaynu ka horeynaa application personal informationka oo aynu u gudbinayno informationkeeni gaar ahaaneed. halkan edit baynu odhanaynaa ka koobaad. kadibna haatan magaceenii xaggii hore aynu kasoo buuxbuuxinay iyo xilligan dhalanay nationalitygeeni oo ka nationalityga halkan kama bedeli kartid buu ku leeyahy. waa shuruuddii markii hore inoo soo sheegay. country of birth waa halkii aad ku dhalatay. waxaan ku qori karaa Soomaaliya. city of birth tusaale ahaan halkeed ku dhalatay. Hargeysa. type of your ID tusaale ahaan ID-gaad haysataa waa noocee, ma baasaboorka ID cardka la socdaa mise waxa weeyaan waa baasaboorkii. markaa tusaale ahaan waxaynu odhan karnaa baasaboor numberkii ayaynu halkan gelinaynaa. baasaboorkii aad haysatay ayaad soo furaysaa. kadibna inta uu ku leeyahay baasaboor numberka soo geli waxa weeye baasaboor numberku waa intan B00 ka bilaabmaya ilaa wuxuu ku joogayaa som wixii xaggan kasoo xiga dhanka bidixda ayaad kusoo koobiyeynaysaa. ayaad halkan ku qoraysaa. kadibna waxaad tegaysaa type of passportka. type of passportka waxa weeye baasaboorkaagu ma student mid ardaynima ma mid business oo ganacsi ahba. markaa waa ku ardaynimo ayayna halkan ku qoraynaa. halkanna waxaad soo gelinaysaa country code of passport. country code of passportku wuxuu uga jeedaa baasaboorkeeni ayaynu tegaynaa. baasaboorkeeni markaaynu tagno waa kan halkan ayaa ku yaala. halka ugu sareysa ayuu country codeka ku yaalaa. astaanta dalka weeyaan ay macnaheedu la mid tahay. waa ka country code waa som. markaa som baad ku qoraysaa halkan. kadibna halkana baasaboorkeeni ayaynu kusoo dhex tuuraynaa. ay soo dhex gelinaysaa. haddii I have a citizenship of another country, haddii aad haysatid dal kale dhalashadiisii halkan ayaad tigta sii saaraysaa. haddii kale waad iska dhaafisaa. haddaba halkanna waxa weeyaan providing this information is not compulsory. wuxuu ku uri waajib maaha inaad halkan information ku bixisid. waa diinta aad haysatid. tusaale ahaan waxa weeye islam baynu haysanaa. ethnicity waxa weeyaan haddaba waa xaggeed kasoo jeedaa. ma carab baa tahay ma soomaali baa tahay weeyaan. halkaas soomaali baynu ka daydaynaa. waa kaas somalis. disability haddii aad leedahay tusaale ahaan oo kale haddii aad handicap tahay, haddii aad ila-dahay amba aad lug la-dahay. marka waxa waa inooyin aad leedahay. marka waxa weeyaan I don't have any disability baad odhanaysaa. melihii wax. the number of mandatory field mid baad ka tagtay buu ku yidhi. waa kahaa. wuxuu ku yidhi ma single baa tahay mise married mise divorced. miyaad kala tagteen mise waad qabtaa hadda mise single baa tahay. single baan odhanayaa. halkan markaan safe nidhi waxaynu dhammaynay hadda personal informationkii qeybtii koowaad. qeybta labaad ee personal informationka waa information on hobbies waxyaabaha aad xiisayso. tusaale ahaan oo kale weeyaan ayaad halkan qoraysa ayaad halkan ka dooranaysaa. waxaan tusaale ahaan oo kale dooranaa book computerka. sidoo kale
internetka, science and technology. Please select it from the hubs below. Please provide detailed information your hubs. wuxuu ku yidhi intaad saddex tusaale ahaan oo kale intaad halkan kasoo dooratid ayaad halkanna kusii sharaxaysaa waxaan aad halkan kusoo dooratay. marka waxaad odhanaysaa I like the technology update. ayaan iska odhanaynaa waxa weeye waxaan jeclahaynaa technologyada update kadibna safe baynu odhanaynaa. kaasna saasaynu kusoo dhamin. special talent information waxa weeye waxaad hibo gaar ah u leedahay ayaad halkan ka dooranaysaa. keybad hibo gaara intan u leedahay tusaale ahaan hadda waxaan halka ka doortay kubaddii. haddii wax kale aad hibo u leedahayna waad ka dooran kartaa. sidoo kale drama acting ciyaarihii waxaas safe marka kubaddii baynu ka doortay. waxaynu u gudbaynaa family informationka. waxa aynu tegaynaa informationkii amba xogtii aad ka bixinaysay waalidkaaga. mother's name waxa weeye magacii hooyada. tusaale ahaan kale xaawo aynu ku qoraynaa. father's namena magacii aabaha ayaynu halkan ku qoraynaa. number of siblings imse caruur ahayd la dhalatay 5. tusaale ahaan is your mother alive hooyadaa miyay nooshahay. haddii ay nooshahayn ahaa, haddii kalena maya. is your father alive miyuu nool yahaa. my mother is work hadday uu hooyadaa shaqayso halkan tigta saaraysaa. haddii uu aabaha shaqeeyana halkan tigta saaraysaa. haddii kalena waa iska dhaafsaa. tusaale ahaan oo kale aabahay uu shaqeeyaa. halka uu ka shaqeeyaad kusii qorqoraysaa. halkan waxaad ku qoraysaa institution company waa halka uu ka shaqeeya aabaha. your father is occupation shaqada uu qabto accounting ba ama architecture ba. sidoo kale title position titleka uu hayo. sidoo kale halkana totally dakhliga soo gala bishii ayaad halkan ka dooranaysaa. hadda ka noqo si aan weynala sii gelin howlo kale. safe aynu odhanna halkan mid ayuu leeyahay waad ka tagtay. totally haddaba dakhliga kusoo gala ayaad sheegaysaa. dakhliga xaafadiina may soo gasha. sorry waa dakhliga xaafadiina soo gala. tusaale ahaan waxaan odhanaya adigu ilaa 100 ilaa 250 ayaan dooranayaa. waa dakhliga bishii tusaale ahaan idin soo gala familigiina. kadibna halkaas aynu safe ku nidhi oo ka tagtay bulugaa soo saaray. sorry aad waxaanu idinka raali gelinaynaa qeybta koobaad inaan wax halkaa kasoo ilownay maadaama aanay calaamad isbedelin. dib ayaynu ugu noqon waan jeegaraynaynaa maadaama aynu labadan soo buuxinay. aynu halkana buuxinay waxaanu odhan karnaa maxaa maqan. sawirkii baynu ilownay. sawirkii profilekaad halkan gelinaysay. laakiin sawir kur ah ayaad mar walba soo gelinaysaa halkan. sawir adoo taagana soo gelin marnaba. sawir kur ah ayaad halkan keenaysaa mar walba. kadibna okay ayaynu iska waa kaatigtii buluuga hadda uu inoo saarmay. sawirkaas ayaynu ilownay. kadibna halkii hore ayaynu kusii soconaynaa contact information. waxa weeyaan waa number waa halka lagala soo xidhiidhayo ayaad sheegaysaa. country waa halka aad ku nooshahay hadda ee lagala soo xidhiidhi karo. Soomaaliya city Hargeysa. halkana postal code maadaama aynaan lahayn postal code waan iska dhaafaynaa. street tusaale ahaan oo kale Hargeysa main street waxa wadada aad degan tahay amba streetka magaceeda amba halka xaafadiina degmada xaafada aad kasii degmadiina xaafada aad kasii degantahay wad magaceeda kusii qoraysaa. building haddii aad fooq ku jirtid marka waa dabaqe ama dabaqa koobaad ba marka labaad ba marka one baynu iska ayaan dooranaynaa. dhowr one tusaale ahaan oo kale. is different from haddii uu
numberka amba xogta meesha lagala soo xidhiidho ee ka duwantay ta halka aad degan tahay halkan ayaad kusii dhufanaysaa halkan ayaad kusii dhufanaysaa kadibna country halkan aad kasii dooranaysaa haatan waxba kasii dooran mayno waa intaasaa sax ah kadibna waxaan tegaynaa wuxuu ku yidhi please state how long you have been living on this address wuxuu ku yidhi intee ayaad deganayd xaafadan amba halkan aad dooratay aad ku qortay halkan waxaad odhanaysaa tusaalahaan kale year sanado haddii aad sanado deganayd haddii aad bilal deganayd month ayaad taabanaysaa waxaan odhanayaa meelaha 7 sano halkanna waxa weeyaan social media ayaad gelinaysaa oo waxa weeyaan social barta aad ka isticmaashid social media ayaad halkan ka dooranaysaa ayaad ku qoraysaa markaad dooran waa optional waxa weeyaan maaha wax qasab ah halkaasun baad soo gelinaysaa username-ka waxaad soo koobeysanaysaa homepage-ka markaad taagan tahay facebookaaga ayaad linkiga xagga sare tegaysaa kadibna waad soo koobeysanaysaa halkan kusoo qoraysaa haddii aad doorbidid inaad halkan soo gelisid twitterkaaga iyo howlahaas kadibna safe ayaan odhanaynaa hal mid ayaad ka tagtay buu ku leeyahay ina tilmaamaya phone numberkii numberka shirkadda ayaynu ku eegaynaa sidoo kale ayna tusaale uga dhigaynaa halkan safe aynu odhan mar walba oo aad wax ilowdo isaga ayaa ku xasuusinaya markaad hal meel baad ka tagta amba 2 meelood kadibna halkiibaad dib ugu noqonaysaa education informationna waxaad halkan kasii buuxinaysaa waxbarashadaadii heerka aad ka gaadhay high schoolka ayaad tegaysaa waxbarashadaadii secondary-ga waxaad ka country waa dalkii aad ka dhigatay secondary-gaagii city magaaladii hargeysa not in the list wuxuu ku yidhi haddii aanu ku jirin maxay ahayd iskuolkaagu liiskan waa in aad ku qortaa magaciisa markaa tusaalahaan waxaan tusaalahaan u dooranaynaa 17 May secondary kadibna educational stageka aad ka gaadhay amba stageka aad ka taagnayd secondary waxbarashadaada waxa waa heer secondary heer waxbarasho sare secondary school type iskuolkaagu noocuu ahaa ma vocational midka dalxiiska iyo waxyaabaha ku saabsan buu ahaa ma religious diimaha mise general buu ahaa qaybteebay ahayd ma science and natural science-ka ma literacy qaybta suugaanta luqadda maths and literature-kiiba haddii aad tusaale ahaan oo kale qaybtii mathska tahay maths laakiin hadda science ayaan dooranaa science kadibna miyaad dhamaysay graduate baad odhanaysaa haddii continuous ay tahayna continuous baad dooranaysaa graduate xilligii aad bilowday si xilligii aad dhamaysay tusaale 2015kii baynu gelinaynaa June bishii koowaad ayaynu bilownay waqtigii aan dhameeyeyna waxay ahayd 2018kii bishiisii June 5teedii marka halkan waxaad gelinaysaa waqtigaad bilowday sidoo kale waqtigaad dhamaystirtay grade type-ka gradekii waa 100 buu ahaa gradeka lagu bixin imsato 10 point markaa inagu dalkeena waxaa loo isticmaalaa 100 ayaynu qaadanaa intii aad ka keentay gradeka waa 98 meelahaas aynu dooranaynaa haddii uu point la socdo 98.8 something point hadduu la socdo halkan aad kasii dooranaysaa point maxay point tusaale ahaan point waxaan dooran karnaa point 707 buu markaa odhanaya isagu waka halkan waxaan soo gelinaynaa diblomadaadii sawir baynu iska soo gelinaynaa maadaama aynu tusaale hadda nahay halkana transcriptig waxa weeye ay horta diblomada halkaas diblomadaas waxa waa diblomadii waa shahaadadaadii secondary-ga ayaad halkaas soo gelinaysaa transcriptig waxa weeyaan waa waraaqada aad ka soo qaadanayso secondary-gaaga ee ay ku xusan yihiin aba ay ku qoran yihiin saddexdaadii class ee kale form 1 form 2 iyo 3 imtixaankoodii darajooyinkoodii ayaad ka soo qaadanaysaa
waayo badanka form 4keena imtixaankiisu waxa uu ku xusan yahay shahaadadeena markaad u eegaysid shahaadada FBNska transcriptiga. marka transcript aynu soo gelinaynaa, tusaale ahaan sawir baynu iska soo gelinaynaa, kadibna halkan ayaan sii tegnay. wuxuu ku yidhi have you achieved any significant ranking at this, wuxuu ku yidhi miyaad ka gaadhay tusaale ahaan oo kale kaalmaha sare miyaad ka gashay, miyaad ka gashay waxbarashada secondary-ga. haddii aad ka gashayna yes, haddii aanad ka gelina no. haddii aad ka gashay yes baad taabanaysaa level of achievement, heerka aad ka gaadhay guushaas, ma magaaladoo dhan bay ahayd, ma dalkoo dhan bay ahayd, ma iskuulkiina oo keliya ta, mise state, mise degmadiina oo keliya. achievement rank haddaba halka kaalinta aad ka gashay ma 1 ma 2 ma 3 ma 4 ilaa 50 ma 50 ilaa 100. marka waxaan iska odhanaynaa no tusaale, kadibna waxaynu dooranaynaa safe. hadda waxaa inoo dhammaystirmay qeybtii education informationka amba qeybtii aad ku gudbinaysay xogtaadii waxbarasho. waayo waa kaa tagtii buluga ha inoo soo saaray. waxa weeye macnaha waxay la mid tahay intaas bood dhamaysay wixii tag buluga aad ay ku saaran tahay high school. maadaama aynu undergraduate xaraysan amba bachelor degree, inta kale waxba ma sii buuxbuuxinin, waa iska dhaafaynaa. waxaan tegaynaa language details oo luqadii aqoontaad luqadda u leedahay. marka native language-ka waa luqadda aad dhalashahaan aad ku hadasho, waa tii native-kaaga waxa weeye waa Soomaali. safe ayaad taabanaysaa, kadibna waxaad tegaysaa haddii luqado kale ay jiraan. do you speak buu ku yidhi miyaad ku hadashaa Turkey, no waad odhanaysaa. haddii yes ay tahayna yes, safe baynu odhanaynaa. kadibna haddii ay luqado kale jiraan add baad taabanaysaa, kadibna other language skillski, language-ka kale aad taqaanaa, tusaale ahaan kale waa English. levelka aad ka taagan tahay waxa weeye waa tusaale ahaan ma beginner bilowba, ma dhexdhexaad, mise waa dhamaystir. tusaale ahaan kale intermediate, I have a certificate, miyaad haysataa wuxuu ku yidhi shahaadadii Englishta, tigtaad halkaa saaraysaa. hadday tahayna ha, waqtigii aad qaadatay ayaad sheegaysaa, waqtigii aad imtixaanka u gashay aad qaadatay ayaad halkan ku xusaysaa. tusaale ahaan oo kale waxaan odhanayaa 2000 meelaha 17 baan odhanayaa bishiisii February 8. kadibna examkii ayaan u galnay ayaad halkan ka dooranaysaa. waxa waa mid international ah, kadibna halkan gradekeed ka keentay. waxa weeyaan halkan examkani waa TOEFL, IELTS. marka halkan waxun baad gelinaysaa haddii aad TOEFL, IELTS iyo kuwa aad soo dhigatay baad halkan gelinaysaa shahaado, haddii kale waad iskaga noqonaysaa. haatan waynu dhammaynay language detailski oo kaa tagtay buluug ah inoo saarmay. working experience waxaaynu tegaynaa shaqadii. haddii aad shaqaysid work experience, wuxuu ku yidhi haddii aad shaqaysid halkan add baad taabanaysaa, kadibna country waa dalka aad ka shaqaysid, company waxa weeye waa shirkadda aad ka shaqaysid, position waa qeybta aad qabatid, ma accounting baatay, ma nurse baatay, position qeybteebaad kasii haysaa. employment waxa weeyaan miyaad I'm currently employed, miyaad hadda shaqaysaa, mise left waad ka tagtay. employment start goortii aad shaqada gashay, goortii aad shaqada ka tagtay. haddii aad hadda wadidna inta waqtigan kusoo saari maayo. please give details about your responsibility at this job. halkan waxaad ku qoraysaa shaqada, tusaale ahaan oo kale waxyaabaha aad qabatid eed mas-uul ka tahay eed qoraal ahaan ku xusaysaa. halkanna waxaad soo gelinaysaa CV-gii amba PDF ahaan amba Word ahaan intaba, kadibna save baad odhanaysaa. kani laakiin optional maaha, waa ka calaamadaas ayuu inoo soo saaray. academic qualification waxa aynu tegaynaa
academic qualification. qaybtan waxaad kaga hadlaysaa haddii aad qaadatay shahaadooyin amba imtixaan aad u gashay internationala. imtixaanaadka internationalka waxaa kamid a GRE, GMAT, SAT, ALES, kuwaasaa kamida oo maxay ahayde qaar kamida ay iskuulada turkigu qaado, sidoo kale kuwa kalena qaar ingiriis ay qaadaan. maadaama aynaan kuwa arag iskaga boodeynaa, haddii aad aragtayna aad baad taabanaysaa. halkan exam name, magacii examka, exam date, waqtigii aada imtixaanka u fadhiisatay, sidoo kale gradekaad ka keentay, country dalkii aad ka gashay, tanna waxa weeye proofing document, waa shahaadadii cadeynaysay in imtixaanka u fadhiisatay, waad iskaga noqonaysaa. labadan waa option. wixii calaamadaas lim huruuda kusoo saaraya waa optional. tani laakiin wixii casaan kusoo saaraya waxa waa qasab, waa inaad buuxisaa. social activities. social activitieska haddaba qeybtan ayaa muhiima. qeybtan inkastoo ay optional tahay oo aanay waajib ahayn, waxay tani kaa saacidaysaa in aad mar walba shahaadooyin halkan aad gelisid, koorasooyin yaryar ood ka qaatay barafadada, helitaanka aad heli kartid scholarshipka ayay kaa saacidaysaa. marka tusaale ahaan award project certificate, haddii aad wax awaard heshay, tusaale ahaan abaalmarin, project aad fulis, aad ka qayb qaadatay, certificate, shahaadad qaadatay, scholarship aad hore u heshay. markaa tusaale ahaan oo kale certificate baan dooranaa, shahaadaynu qaadanay. name, maxay shahaadad magaceedu, waxay tusaale ahaan oo kale English. institutionkii tusaale ahaan oo kale brevetkii magaciisii nuruddin ayaynu taabanaynaa, nuruddin institute ayaynu ku qoraynaa, waa tusaale. documentkii halkaa waxaynu soo gelaynaa shahaadadii, sawir baynu iska soo gelin, haatan tusaale. datekii aad qaadatay ayaad ka dooranaysaa, 2018kii baynu dooran karnaa, June 7 kadibna shahaadadani maxay ahayd, waa certificate. halkana description waxaad ku xusaysaa halkan aduu in yar, please provide explanatory information. halkan waxaad ku qoraysaa faahfaahin yaroo dheeraada. marka waxaad iskaga qoraysaa tusaale ahaan oo kale, shahaadadan waa shahaado English ah oo ka dhameeyay isla brevetkaas muddo dhan 3 sano. waxay iga saacidayaan in aqoontayda Englishtu kor u kacdo. aduu waxyaaba noocaas ayaad ku qoraysaa oo iska soo yara gaaban. kadibna iminkaas si aynu u buuxbuuxsanto, halkan marka safe ayaynu odhanaynaa. waxaynu haddaba tegaynaa halkan voluntary activities. haddii aad tusaale ahaan oo kale NGO kasoo qayb qaadatay si volunteera, si mutadawacnimo ah, halkan ayaad ku buuxinaysaa. kuwani markaa qeybta labadan qeybood voluntary activitieska, mutadawacnimadaas iyo qeybta hore koorsidu waxay kaa saacidayaan inaad hesho scholarshipka. marka voluntary activitieska haddii tusaale ahaan oo kale magacii wixii aad ka qayb qaadatay magaciisii, tusaale ahaan oo kale waxaynu ka qayb qaadanay water sanitation. NGO-gii waxaynu odhanay save the children, tusaale ahaan oo kale haddii ay jirto weeyaan, hay-adda save the children. descriptionna waxa weeyaan waxaa kaga qayb qaatay biyihii ayaan. marka halkan waxaad ku qoraysaa, waxaad sharaxaysaa wixii aad qabateen eed in yaroo kooban ku sharaxaysaa oon badnayn ilaa 500, iyo wixii ka hooseeya ayaad ku sharaxi kartaa. marka safe aynu iska odhanaynaa. Turkey experience, marka labadan iyo kan aynu buuxbuuxinay, saddexdaasba optional oo waajib maaha inaad buuxbuuxisid. laakiin qeybta social activitiesku waxay kaa caawinaysaa, weliba koorasyadan yaryar eed halkan gelgelinayso, waxay kaa caawinaysaa helitaanka scholarshipka. haddii ay shahaado English tahay, haddii shahaado computer ay tahay, kuwaas waxay kaa saacidayaan inaad heshid scholarshipka.
qaybtan ayuu u imanaynaa Turkey experience waxa uu khibrad aad u leedahay dalka Turkiga. wuxuu ku yidhi are you in Turkey now or have you ever been to Turkey? miyaad hore u tagtay Turkiga mise waad joogtaa hadda? No, baad odhanaysaa haddaanad tegin, haddaad tagtayna haa. waxaynu odhanaynaa kadibna halkana waxaynu tegaynaa please specify how you learned about this scholarship. Scholarshipkan halkeed ku aragtay, sideed u aragtay, yaa kula soo socodsiiyey. halkan wuxuu ku yidhi waxaad ku aragtay telefishinka ma radiowga, maxaysiis dhanka warbaahinta ah, mise another website kale ayaad ku aragtay oo aanad websitekan ahayn scholarshipka. degree of qof waxaad isku tihiin, tusaale ahaan oo kale ma saaxiib baad tihiin baalka ku jirta oo kale. other relative baad odhan kartaa. purpose of your stay, Turkiga isagu muxuu ka qabanayaa. waxaad odhanaysaa waa arday tusaale ahaan oo kale. marka tusaale ahaan oo kale imka maxamed benska ayaan ku qoraynaa. friend saaxiib baynu nahay. maxamed cali magaciisii awowgii. ardaynimo ayuu joogaa tusaale weeyaan. haddii aanu jirin qof turki ku joogana nooba doonaysa halkan iyaas doortay. kadibna haatan waynu dhammaystirnay wax allaali wixii inagu waajib ahaa inaynu dhammaystirno. kadibna waxa aynu tegaynaa homepageka waxa weeyaan waa bartii aad ka dooranaysay sidoo kalena aad ka xareysanaysay jaamacadaha. hadda waxa uu inoo soo saaray homepagekeenii markii aynu soo dhammaystirnay intaasoo meelood aynu soo buuxinay, sidoo kalena uu tigtaa buluuga inoo wada saarmay. homepageka ayaynu tagnay, kadibna pagekan ayaa inoo soo saaray. pagekani waxa weeye waa qeybtii amba waa halkii aad ka xareysanaysay jaamacadaha, sidoo kalena aad ku gudbinaysay waraaqadii recommendation letterka aad kasoo qoratay macalinkaaga amba formasterkaaga secondary-ga. hadda waxaynu xareysanaynaa bachelor degree amba undergraduate. apply baynu tegaynaa. kadibna attention wuxuu ku yidhi waa inaad intaanad gudbin scholarshipka waa inaad iska checking garaysid dhaatadaada aad gudbisay oo dhan inta aanad gudbin. wuxuu ku yidhi sidoo kale haddaanad gudbin information amba xog sax ah oo dhammaystirnayn, wuxuu ku yidhi applicationkaaga waa la delete garaynaya oo lama aqbalayo. sidoo kale wuxuu ku yidhi make sure that you have completed and submitted your application before the application deadline. wuxuu ku yidhi waa inaad ogaataa sidoo kale aad la socotaa waa in aad gudbiso applicationkan inta aanay dhicin scholarshipkan deadlinekiisu. kadibna saddexdaas weeyaan start application baynu odhanaynaa. kadibna waxaynu applications may take 30 to 50 minutes based on whether you have prepared your documents. haddaba applicationkan wuxuu qaataa 30 daqiiqo ilaa 40 daqiiqo intaad ku xareysanaysid. bachelor degree candidates should not be intan waa intaynu kaga soo sheekayna xaggii hore. I have read baad odhanaysaa, waan akhristay. kadibna waxaynu tegaynaa preference waxa weeyaan your first one preference will be considered as you prefer. wuxuu ku yidhi halkan waxa uu bartii aad ka xareysanaysay jaamacadaha. sidoo kale waxa aad ka dooran kartaa jaamacadda koowaad ee aad ka dooratay waxay noqonaysaa ta ahmiyadda koowaad la siinayo, laakiin jaamacadaha kale aad soo raacisay waxa ay noqonayaan optionada labaad iyo kuwa saddexaad iyo kuwa afaraad. tusaale ahaan haddii ta hore kusoo aqbali weydo ta labaad baa loo eegaya inay kusoo aqbasho, haddana ta labaad haddii kusoo aqbali weydo ta saddexaad, ta afaraad. sidaas ayaad ku xareysan kartaa 12 jaamacadood. hadda tusaale sameynaynaa financial accounting. markaad halkan aad kasoo eegtid, halkan marka aad tagtid aad eegaysid facultyga aad xareysanaysay waa inaad eegtaa waxyaabaha uu kugu xirayo oo halkan aad kasii tegaysaa. wax TOEFL haba yaraatee kaasuu inagu xirayaa ma jirto. Istanbul kaasaynu tegaynaa oo tusaale
waxaa idinkula talinayaa inta aydan xareysan jaamacadda waa in aydu programka soo search-garaysaan isla bilowgaba, sidoo kalena aydu eegtaan shuruudaha lagaaga baahan yahay jaamacad walba adoo ku saleynaya facultyga aad doonaysid. hadda jaamacaddii markaan dooranay air baynu tagnay, kadibna facultygii ayaan kasii dooranay, halkan aynu eegaynaa wixii naga doonay, kadibna safe baynu odhanaynaa. marka mid walba air baad odhanaysaa 12 jaamacadood, kadibna tigtaasaa saaraysaa, ayaa agree baad odhanaysaa. okay, taas sidaas ku gudbisay qaybta labaad. letter of intent baynu soo gudbaynaa. letter of intent waxa weeyaan waxaad kaga sheekeynaysaa waraaqadan amba pagekan. in this section is expected to explain the following details. waxaad kaga sheekeynaysaa your academic and social experience related the field you want to take in education. wuxuu ku yidhi fiilkan aad xareysanaysid ayaad waxaad ka sheekeynaysaa khibradii aad uga lahayd dhanka bulshada, sidoo kale dhankaagii waxbarasho ee heerkaagii secondary. haddii aad wax khibrada usoo lahayd fiilkan aad xareysanaysa waqtigaagii secondary-ga, halkan ayaad ku xusaysaa. sidoo kale waxaad aad ku xusaysaa baad ku sheegaysaa sababaha aad ugu dooratay inaad turki usoo dhigatid, iyo sidoo kale qorshayaasha mustaqbalka marka aad scholarship aad soo dhamaystirtid, waxyaabaha kaaga meel yaalla fiilkan aad soo baratay ayaad ku sheegaysaa halkan. sidoo kalena halkan if you have a subject in your application document that you think, halkanna waxaad ku sheegaysaa haddii ay jirto subject amba xiisad ay kugu adag tahay amba aad ku hooseyso, yacni aan u dhigo waa xiisad aad matalan oo kale aad leedahay xiisadaas iskuma wanaagsanidin hadday noqoto waqtigaagii secondary-ga iyo waqtigan aynu joognaba. tusaale ahaan oo kale waxaan odhan karaa chemistry, xiisada chemistry waqtigaagii secondary-ga iyo imikaba iskuma wanaagsanin. marka tani waxay kaa saacidaysaa in hadhow toole marka interviewga lagula yeelanayo haddii scholarshipka aad ku guuleysatid, in xiisadan oo kale aan wax su-aala lagaa weydiin oo lagula yara saa'iro. interview locationka aynu tegaynaa markaad ka hore aad soo gudbisid letter of intent. interview location waa halka lagula yeelanayo interviewga adaa dooranaya. waxaad tegaysaa qaybtan tusaale ahaan oo kale Soomaaliya, halkan doonaya interviewga laygula yeesho Hargeysa, kadibna safe baan odhanayaa. waxaan kasii tegayaa haddana halkan reference informationku waxa waa halkii aad ku gudbinaysay haddaba recommendation letterka, waraaqadii aad kasoo qoratay formasterkaaga aad baad odhanaysaa. kadibna halkan waxaad gelinaysaa name, magacii macalinkaaga, magaciisii ugu dambeeyey, sidoo kale numberkiisii, sidoo kale emailkiisii, sidoo kale halkii institutionkii uu joogay, tusaale ahaan oo kale secondary-gaygii magaciisii, titlekuu hayay haddii formaster tahay iyo haddii kaleba, reference letterkii ayaad halkan soo gelinaysaa, waraaqadii recommendation letterkii, wuxuu ku this information, kadibna tigta ayaad saaraysaa, safe baad odhanaysaa. kadib markaad safe tiri waxaa kusoo saari doonaa summary application, oo hadda maynu gudbin inagu oo tusaale aynu maraynay, laakiinse haatan applicationkii oo dhan waynu dhamaystirnay, intii muhiimka ahayd waynu soo dhamaystirnay. halkaa ugu dambeeya summary of application wuxuu kusoo baxayaa markaad intan gudbisid kadibna aad safe tiraahdid ayuu kusoo baxaya summary of applicationkani. waxaad samaynaysaa submit ayaad odhanaysaa haddii uu ku dhamaystiran yahay ood gudbisay. markaa waxaad sugaysaa jawaabta ay ku siiyaan guddida kala xuristu scholarship. waxaa idin leeyahay guul wacan baan idiin rajeynayaa dhammaantiin ardayda Soomaaliyeed ee xareysanaysa qeybta undergraduate-ka.